walaalayaal ummadda muslimka ah maanta xaaladaha ay maraysa waxyaalaha walaalayaal suuragal uga dhigi waayo walaalayaal horumar inay ay gaaraan ama inay hore u socdaan waxaa ka mid ah walaalayaal qaar fara badan oo doonaya inaan islaamku soconin, qaar fara badan oo doonaya inaan islaamku hore u marin oo ummadda islaamka ah aysan madaxeeda kor u soo qaadin oo shaqooyin fara badan ka hoos abuuraya. Shaqooyinka fara badan ee qabanaya walaalayaal waxaa ka mid ah in maanta walaalayaal ummad fara badan oo sunni ahayd oo ku dhaqanayd wadamo fara badan maanta ay ciidda qaarna ka hoos mareen oo magaalooyinka ay deganaayeen walaalayaal lagu korduugay. Walaalayaal anaga maanta bulshada muslimka ah haddaan nahay Soomaali walaalayaal waxaan gaarnay heer aad iyo aad u khatar ah oo ummadda muslimka ahna ay aad iyo aad walaalayaal ay maanta u daciifsan tahay ayaan maanta waxaan gaarnay heer aad iyo aad u khatar walaalayaal. Heerarkaan maanta gaarnay waxaa ka mid ah xaasidnimo anagu maanta isxaasidayno oo aan isu xaasidayno walaalayaal qaab qabiili ah iyo qaab xuduud ah iyo qaabab kala duwan walaalayaal. markaas waxaan soo dhaweysanay walaalayaal gaaladii baa markaa waxaan walaalayaal xarumo ka samaysta halkan deganaada, xarumo ka samaysta ciidamadiina keena walaalayaal. meel ka warqabin wadamadii ciidamada gaaladu ay aadeen walaalayaal waxyaalaha ka dhacay waliba nimanka kufaarta ee gaalada ee waaweyn dhibaatooyinka iyo hardanka ay iyagu isku hardamayaan isdili mahayaan ummadaha masaakiinta iyo dadka masaakiinta dhulkooda inta la yimaado la isku dilaya. markaas ummadda muslimka qolo walba waxa ay doonayso in ay awoodeeda ku soo bandhigto ama lacagteedana ay ka gurato ama kheyraadka wadanka wixii la ay qaadato wadanka dadka ku dhaqan walaalayaal dulli ay noqdaan walaalayaal. arrimaha noocaas oo kale taa wadamo fara badan baad ka aragteen cid isdilaysa ma jiraan, gaalo isdilay ma hayso, ummadda muslimka ah way ku kortumanayaan walaalayaal. hadhowna waxaa lagu leeyahay waxaa jiraya dalhebel iyo dalhebel dagaalkii saddexaad adduunka wax yar looga jiraya wax yar u yarkaadii wax ka jira oo haba yaraatee arrimaha noocaasna ma jiraan. ummadda tan masaakiinta baa walaalayaal korkooda in lagu tunto oo lagu karbaasho sababtoo walaalayaal diintii ilaahay ayay ka tageen dadkani. diintii ilaahay inay ka tageen waxaa cadaynaya waxyaalahan maanta ka dhacaya inaad weli ka yeelatid gaalo adiga oo kasoo horjeeda ama diidan nidaam kale ama dowlad kale ama walaalka kale oo muslim ah oo kula degan oo isku afatihiin oo waliba aduguna aad isku af iyo isku diin iyo isku odwadaag iyo wax walba oo fara badan oo calaaqaad ah ay dhexdiina yihiin. maanta marka kuwaas aad celisid oo la dagaalantid oo cadaawad fara badan u samaysid iyaad maanta soo dhaweysanaysaa marka niman isdilahayo oo iyagiiba isirinayo oo isbursanaya. marka walaalayaal waxyaalo fara badan oo ka jira adduunka waxyaalahaas dadka Soomaaliyeed kuma baraarugsana, ummadda afka Soomaaliga ku hadashana kuma baraarugsana, culimadeeduna ma qayb xabsanaysa iyo qayb aan waxba sheegi karin iyo qayb dhuumanaysa ayay noqdeen. marka walaalayaal waxyaalaha adduunka ka jira waxaa ka mid ah marka walaalayaal magaaladii nabigeena calayhi salaatu wasalaam in ay nimankii boqorada meesha ka taltaliya ay halkan xukuma ay ku tunteen ay ku tunteen heeso iyo waxyaalo aan lagu talagelin ay ku qabsadeen ay ku boodboodeen xitaa magaalada haddii saahin magaalada hareeraheeda ay ku boodeen. waxyaalahaasna waxaa ka mid ah markii nimankii culimada ahaa ay joogay meeshaasna la rabay inay ka fadwoodaan oo ka hadlaan oo yiraahdaan urnimayo waxaan diin maahay waxaan ciyaarta iyo dhaqamada noocan ka daaya ummadda dadka muslimka ah ee meesha degan ku fasaahadinin inaana ku luminina ay oran waayeen oo iska aamuseen ayaa walaalayaal maalweyd magaalada Maka barambarooyin ay meel lagu arkay. meeshii barambarooyinka lagu arkay iyo ayaxyo iyo waxba la arkay baa la sheegay. marka walaalayaal waxyaalahaas xitaa ay ka fududeen markaas waxay ka soo saareen in ayaxu xalaal yahay hadduu dhinto iyo hadduu caadi yahay. marka walaalayaal waxyaalaha in lagu qoslo u baahan bay kamid tahay waxyaalahaas walaalayaal. miyaa ayaxyada iyo waxyaalaha yararka ilaahay qoom ku halaagin markaas ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku yiri farsalna calayhim tuufaana wal jarada wal والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولا قوم كي نبي موسى عليه الصلاة والسلام لو دراي فرعون ميسن وحياها نوعاس لو هلاي ولا marka kuwaasina ma oga in alladina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila way qoladii ku iibsatay kitaabka Ilaahay xooga yar oo cagawi iyo kuwa kan umada dilahaya ee qarxinahaya ee leynahaya ee dadka dhiigooda iska banaysay xarashaday. marka walaalayaal umada muslimka ah waxyaalaha
ka maqan ee aan maanta jecelnahay ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno waxaa kamid ah waxyaalaha noocaas oo kale in aan ummadda uga digno oo ah in aysan ummaddu iyagoo isxasdahay inaan waraabayaal iyo dad aan doonahayn aan ka naxahayn ummadda tan aan ka naxahayn walaalayaal xukuumadii intaa u dhiibateen oo talooyinka u dhiibateen oo tiraadeen maamula inay jar ka tuuraan baash oo ay markaas ummadda fasaadiyaan walaalayaal ummadda haddii fasaadiyaan kuwaas dhibaatooyin fara badan ayay keenayaan walaalayaal marka ummadda muslimka meel kastoo joogtaba waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa adduunkan uma joogtaan inaad xukun heshaan uma joogtaan inaad qabiil ka harsataan uma joogtaan inaad waxyaalo kale oo aad qabsataan laakiin waxaad u joogtaan oo Ilaahay idiin sameeyey oo idin abuuray wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuna baa Ilaahay idiin sameeyey haddii walaalayaal taa aydan maanta aydan ku baraarugsaneen hadda ku baraarug walaalayaal wixii taa ka sokaysana walaalayaal waa baadil haddii wixii ay taas ay ka soo kamaraan baadil bay noqotaa walaalayaal dilka mar xitaa waxaa la yidhi walaalayaal fitnada ayaa ka daran dilka alfitnatu ashaddu min alqatli baa la yidhi walaalayaal marka ummadda muslimka waxaan ugu dirnaa inay fidnoobaan oo diintooda ka fidnoobaan oo ay walaaladood inta nacayb loogu beero oo caro loogu beero oo ay xanaaq iyo cuqdad iyo waxyaala fara badan ay buuxiso iyo inay doonayaan inay dhibaatooyin kale ka shaqeeyaan ayaa walaalayaal waxaa loo keenayaa waxyaala aysan u baahnayn kitaabka Ilaahay inay ku qoran tahay walaalayaal cadaabka Ilaahay inaanu gacmaha ku samaysan walaalayaal Ilaahay ka magan galaynaa ummadda muslimka iyo masaakiinta ee halkaa degan iyo muslimiinta dhammaan in Ilaahay dhibaatadaas ka kor qaado ayaan Ilaahay weydiisanaynaa ummadda kuwaas waa kooxo yaryar oo walaalayaal waxyaalo fara badan oo yaryar isku haysto wax haweenatee adduunyo iyo aakhira faa'iido ugu jirta la arag isku haysta marka walaalayaal kuwaasna in Ilaahay soo hadeeyo haddii aan hadaayo oo horeyn walaalayaal waxaan dhibaatooyin aan gacmaha ku samaysanay in Ilaahay aan barino Ilaahay dhinac noo dhaafiyo marka walaalayaal ummadda muslimka Ilaahay ha u gargaaro meel kasta ay joogaanba culimadana waxaan walaalayaal ugu booriyeynaa inay ka shaqeeyaan walaalayaal in nacaybkaas tirada badan ee gaaray heerka xun ee maanta aan gacmaha doonayno inaan ummaddeeda ku xabaalo walaalayaal ka shaqeynaya inaan uga digno aan ummadda muslimkaana aan ogeysiino ciddii wax ka qaban karta arrimaha noocan oo karta arrimaha loo dulqaadan karo maaha walaalayaal marka waa inaan istaagnaa oon kor u kacnaa wadamo fara badan oo maanta wanaagga iyo qiimaha iyo qaayalaha maanta waxay ka hoos mareen ciidda walaalayaal u jeedaan waxyaalaha ka dhacaya marka walaalayaal inaan ku darsano walaalayaal Ilaahay baan ka magan galay ummadeena inay tafaraaruq iyo waxyaalihii oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam inooga digahay wa'tasimu bihablillahi jamiican walaa tafarraqu laha oo nabi Muuse Haaruun oo kulaha يا ابن إما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وحوي ولا ليل وحل جهل هاي شرك في حي ولا ليل كتابك إلهي والله نعمري أو إلهي القوت المامي وحو صراحين أيه ولا ليل جهل هاي مركني بهارون ولا كي قبل هاي إنه موسى عليه السلام أو قبل هاي ولا ليل مرك ولا ليل وإن كديك تونا وحيالها فربنا دون كتير ما أنت وإن هذولك مسلم كه ayaad walaalaha tihiin ayaad dariska tihiin ayaad isku afka iyo isku dhaqanka iyo isku cizi karaama iyo sharaf intaba intaas mudan walaalayaal intii yartahay ummadda adduunka ka hadhay waa intaa yartahay hubada ah dagaal walba oo lagu soo qaado walaalayaal inay marka Ilaahay inuu gargaaro inuu dhibaatooyin gacmaheena ku shaqaysan ummadda muslimka iyo culimadana uga digaynaa inay waxyaalaha ka shaqeeyaan in ummadda la isugu keeno walaalayaal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad